madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhambaal tacsiyo u diray ehelada qaraabada iyo asxaabtii uu ka geeriyooday safiirka Kenya oo fadhiya Koonfurta Suudaan Chris Mburu oo ku geeriyooday magaalada Juba ee caasimadda Koonfurta Suudaan. Uhuru ayaa sheegay Danjiro Mburu inuu ahaa qof shakhsiyad wanaagsan caan ka ah geeyiga Kenya isla markaana si weyn uga shaqeeyay sidii loo dhisi lahaa xiriir iskaashi u dhaxeeya Kenya iyo Koonfurta Suudaan. Kenyatta ayaa dambaalkiisa tacsiyo waxa uu ku yiri dhimashadiisa waxay noo horseedi doontaa inaan wayno shaqaale dawladeed aad u wanaagsan isla markaana ka shaqeyn danta iyo dalka. Waxa tan 2018 markii loo magacaabay uu sheegay Mburu inuu ahaa nin si weyn uga shaqeeyay iskaashiga u dhaxeeya Koonfurta Suudaan iyo Kenya. Madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku tilmaamay safiirka geeriyooday xidig u soo baxay dalkani Kenya lana tabi doona waliya shaqada wacnada uu ahay dalka iyo dadkaba. Uhuru ayaa ehelada uu ka geeriyooday marxuumka waxa uu sheegay inuu uga baryay Eebba inuu ka siiyo samir iimaan. Danjiro Mburu ayaa la magacaabay sanadii 2018 wareegta ka soo baxday aqalka madaxtooyada dalkani Kenya looga arimiyo. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in si weyn uu arintaasi uga tacsiyeenay